waday kolba waxba la sheegi jiray bariyay hore sixirada marba la oran jiray hadaad waxa samayso markaad inta samayso hadaad salaantaada u tagto ina may dhalaysaa waa una qoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday haday islaamtu waxaan cunto ilmay dhalaysaa haduu ninku waxaan cuno ilmu dhalaya waa la soo waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yiraahdaan bas islaamtu shaqaba kuma leh chromosomiskeedu waa x shaqa kuma leh waa un ninka mima indaafiqa ninka uunba dakarkiiyo unsuuba ka yimaada ninka oo kaliya ayaa x and y dabeetana labada tan aayadka quraani way sheegayaan ninka kan min maniyin yumna inuu ilaahay ka abuuro maxay adakara walunta laakiin xadiista nabiga waxay kala sheegayaan haweenka maageedu haday culuwi ama sabqi sameeyaanna inuu unsa noqonayo ninka maagiisu haday culuwi ama sabqi sameeyaanna inay maxay dakar noqonayo mas'aladaasi saynisku horu fahmi kari waay biyahan kuwan haday kor noqdaan iyo kuwan haday kor noqdaan wareega siya way gaban ninkaasi daba yiraahdaan gabadho eegasaga sunbaysida therefore gabadho shaqo kuma leh ee waa ninkuun hadii eegaskiisu la kulmo hadii waygiisu la kulmo chromosomka ninku maadaama uu isagu يعني أصلياً unuga qofka bini aadamkii ka kooban yahay waa 46 koromosoom hal unuga qofka bini aadamka ku jira ayuunba 23 waa unuga taranta gabadhu waa 23 unuga taranta ninkuna waa 23 labadaas 23aad ba markay isu tagaan waxay noqdaan maxay 46 unuga ragga ee taranta ayaa marka wuxuu isugu jira mid 23 dhadiga iyo mid 23 laba haweeneyda keedu waa 23 dhadig oo qurba ilayeen laakiin 23 ka dhadig haweeneydu haday 23 ki dhadig ninka la kulantana dhadig buu noqdaa haday 23 ki laba ninka la kulantana nin buu noqdaa saadaradeed bay yiraahdeen gabadhu markasta dhadigunba ka soo socdo saadaradeed ma shaqaba kuma leh dhawaan waqti aad u dhow ayaa waxa la ogaaday mas'alad dambe oo madaxeeda ma jawr rogtay waxa la ogaaday beedka haweenku dawladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kala nooc ah waxay kala ogaadeen manida ninku spamiska agaska iyo kuwa waayga inay qaarna positive iyo qaarna negative yihiin islaanta beedkeeda oo negative ah xaaladu joogo haddii maxaa aqbali karaa hadduu negative matalan yahay negative iyo positive unbay soo jiita hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya weeraysa idan islaanta beedkeeda oo negative hadduu ninka labka kiisa labu negative yahay maxaa dhacaya weeraysa chance male uu ku laboobo ilma dhalanaya waa inuu noqdaa un kan kale ee positive ka inuu la kulmo hadduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya ki positive ka bay yeeraysa de Soomaha two positive ismiye kulmaan magnetismka marka dhigan jirteen muxuu aan jiray wixii soo eegina waa kala yaacaan wixii kala gadisanina way soo jiitaan Soomahayn waxaynu islaanta beedkeedu uu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba uu noqon karaa labka iyo dhadigan wadaygu sidaana midna waa positive midna waa negative idan chances ka inuu ka negative ki la kulmo kan waxay ku xidhantahay inaanu kan ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay rebellion baa dhacaya marka waxay sawiraan marka maridii ninka oo مثلا inta kan negative noqotay kuwii negative ka hayd dib u soo yaacayaan inay baadka qabtaan xaqiisa daayay kuwii positive ka quray ku sii socdaan idan Chinese-kii labnimadu uu lumaya cagsiga Chinese-kii dhadignimadu uu lumaya markay neutral ka tahayna labadaba waa aqbalaya bay yiraahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jiidan kara idan hadda waqti aad u dhow ma ha waqti fogba scientifically waqti aad u dhow oo researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantay bal waxay yiraahdaan 70 to 80 days sanadkii ayay negative tay 70 to 80 days sanadkiina waa positive inta kalena bay yiraahdaan waa ayna
حتى مالمهي باي كويين 70 gaas xagee ku dhacayaan waa mas'ala kale xagee ku dhacayaan waa mas'ala kale laakiin waxay leeyihiin 70 to 80 days ay negative tay that means 70 to 80 days ayaa chances ka ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab 70 to 80 days na chances ka ugu badan ilmuhu wuxuu noqonayaa maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihiin dhadig iyo lab ku noqonayo waxyaabo kale oo badan oo xukuumada waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxay leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmiga waxay tahay wax kasta oo taxta al-mushahada yimaado intii ugu dambeysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyay quraanka iyo waxyigu quraanka iyo sunnada nabiga salawaatu ullaahi wa salaamu calayhi sugaysa waxaan ku soo koobaya marka mawduuca kani wuxuu baa isku dayay cumuumiyaadkiisa inaan sharxo ama juziyaadkiisa iyo amthiladiisu ahayn waqti badan iyo hadda in mawduuc gaar ah laga warramo waayo mawduucul janiin oo qura laga yaabi lahaa 2 saacadood 3 saacadood inuu qaadanayo inaynu isku dayno nusuusta soo aroortay inaynu soo ururino qoladan kale waxay sheegeen inaynu soo ururino sharaxno waxa laga yaabaa roobka iyo sidoo uu doo qura nusuusta quraan iyo xadiis ku soo aroortay inaan soo ururino scientific proof ka soo ururayna soo ururino isla muxaadaro yani ay mas'ala laga warramo waxa laga yaabaa cilmiyan hadii la israa uga warramo inay u baahan tahay maxay saacad laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo inuu yahay nooc min al-i'jaaz maanta dad badan oo culimo oo waaweyn oo faniyada tan khabiir